diyaarado dagaal oo Shiinuhu uu leeyahay ayaa dul wareegaya hawada Taiwan. dabcan Shiinuhu waxa uu doonayaa Taiwan xilligana waa waqtiga ugu habboon ee ay tahay in uu dagaal ku qaado. haddaba muxuu yahay mowqifka Mareykanka? ma waxa uu garab istaagi doonaa Taiwan mise Ukraine? America bismiya oo intaas miya ku itaal dareeyeen oo awoodooda miya daciiftay? jawaabtu waa maya. laakiin waxa ay ku jahwareersan yihiin dhacdooyinkan isbarbar yaala ee sida lama filaanka ah u soo kordhay isla markaana sida xawliga ah ku socda. Mareykanku weligiis ayuu dhaqan u lahaa in uu mar kaliya laba aag ka dagaalamo, laakiin markan cadawga ay tahay in la dagaalamo ayaa kala duwan. weliba cadow oo haddii ay doonaan hal saf ka soo wada jeesanaya, Shiinaha iyo Ruushka. waxaaba sii dheer hogaamiyaha mayalka adag ee dunida jahwareeriyay. waxaan ula jeedaa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. dhacdooyinku waa isdaba joog. xasradaha wadamadaas ay horkacayaan waa kuwa xawaaro sare ku socda. Mareykanka aan ka hadlayno waa kii 1 milyan oo ruux ku dilay Ciraaq, waa kii qumbuladii nukliyeerka la dhacay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki ee dalka Japan, kaas oo galaaftay nolosha 400,000 oo Japanese ah. Mareykankii ku habsaday wadamo badan oo Carbeed inta uu madaxdoodii tuuray wuxuu doona ka samaystay. sidaas oo ay tahay Shiinuhu waxa uu Mareykanku ku qalqaalinayaa dagaal saddexaad oo caalami ah in uu adduunku ka dhaco. haddaba maxay tahay waxa ay raadinayaan indhayartu? Shiinuhu waxa uu leeyahay marnaba suurtagal ma aha in Taiwan ay ka go'do dhulweynaha Shiinaha, waana riyo aan suurtagal ahayn in ay rumowdo. Shiinaha oo gaashaanbuur ka dhiganaya Ruushka iyo dhanka kale oo ay taagan yihiin Taiwan, Ukraine iyo Mareykanka ayaa dunida jahwareer ku riday, taas oo in badan wax la iska weydiinayo. waxa kaliya ee la sugayo iyada oo walwal la qabo waxa ay tahay goorma ayuu Shiinuhu la soo bixi doonaa qalinkana ku duugi doonaa waraaqihiisa uu dagaalku ku fasaxayo, taasoo haddii ay dhacdo uu ribix u arko Ruushka, maadaama uu hadda lugaha kula jiro xasradda Ukraine, jeclaan lahaana in aag kale oo xasrad iyo dagaal ah ay uga furmaan reer galbeedka. xaaladdu aad ayay u cakiran tahay. waxa kaliya ee la dhowrayana waa goorta uu Shiinuhu ku dhaqaaqi doono dagaal lagu qaado Taiwan oo isku dayaysa in ay noqoto dawlad madax bannaan. laakiin maxaa Mareykanka kaga aadan tallaabadaas? ma waxa uu ka aamusi doonaa Taiwan oo uu u muujin jiray in uu garab u yahay? waqti badan ayuu iska aamusnaa madaxweynaha Shiinaha, laakiin markii uu arkay duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, shaxdii waa uu bedelay. sidoo kalena waxaa dhici karta in uu si degdeg ah u bedelo xeeladda ciyaarta, kadibna loo noqdo xeerka duurjoogta, kaas oo ah kan awood lihi in uu cuno kan taagta daran. markii uu Ruushku ku duulay dariskiisa Ukraine, Shiinuhuna waxa uu diyaarado dagaal u diray hawada Taiwan oo ay xulafo yihiin Mareykanka. 150 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah ayuu Shiinuhu hadda ka hor u diray hawada Taiwan sanadkii la soo dhaafay. waxaa markaasi cirka isku shareeray xiisadda labada dhinac. ra'iisul wasaaraha Taiwan haweeneyda lagu magacaabo Chai Ching-ching ayaa Shiinaha ku eedeysay in uu gobolka ka horinayo colaad uu 100% ku gardaran yahay. laakiin maanta xaalku waa uu isbedelay kadib markii Ukraine duulaanka lagu qaaday. waxayna u egtahay in aysan cidina hor joogsan karin dagaal uu Shiinuhu ku qaado Taiwan. taliyaha ciidanka cirka Mareykanka General Charles Brown Jr. ayaa sheegay ciidanka Shiinaha, weliba gaar ahaan kuwa hawada ee ka howlgala badda Pacifiga, in aad loo horumariyay. sidaas darteedna waxaa suurtagal ah ayuu yiri in sanadka 2035 ay burburiyaan ciidamada Mareykanka. haweeney afhayeen u ah Shiinaha oo ka hadlaysay diidmada uu Shiinuhu diiday in weerarkii Ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine lagu tilmaamo mid duulaan ah ayaa waxa ay tiri, duulaan waxa ah ereyada ay adeegsadaan warbaahinta reer galbeedka. adinkuna waad ogtihiin sababta arintaas. tusaale aan u soo qaato, muxuu ahaa ereygii ay adeegsan jireen warbaahinta reer galbeedka markii uu Mareykanku ku duulay Ciraaq iyo Afghanistan? warbaahinta reer galbeedku ma waxay adeegsan jireen ereyga ah duulaan mise waxay adeegsan jireen ereyga cadowtooyo si loo tilmaamo nooca uu yahay dagaalkii ay wadamadaasi ku qaadeen ciidanka Mareykanka, kaas oo aan ku fadhinin wax qaanuun aasaasi ah iyo fasax laga haystay qaramada midoobay. bal soo xasuusta maxay adeegsan jireen? duulaankaasi dartiisii waxaa naftooda ku waayay dad badan oo birmageyda ahaa, halka kuwa kale ay ku naafoobeen. marka haddii aan dib ugu laabanno sida uu Mareykanku ula dhaqmay wadamo badan oo duulaanadii uu ku qaaday aanu u haysan wax fasax ah, hadda maxaan u adeegsan karnaa waxa ka socda Ruushka iyo Ukraine? ma duulaan qaawan mise wax kale? afhayeenadu ayada oo sii hadlaysa waxa ay tiri, Taiwan waa gobol ka mid ah Shiinaha, mana jirto cid bedeli karta xaqiiqda taariikhdaas.
shiinuhu waxa uu si cad u soo hortaagay in la ganaaxo ruushka wuxuuna ka soo qaaday waxa ruushka iyo Ukraine u dhaxeeya arrimo hoose oo labada dhinac un quseeya si la mid ah arrinka Taiwan oo uu shiinuhu u arko mid daakhili ah oo isla shiinaha uun u taala shiinuhu waxa uu ku adkaysanayaa cidna in aysan xaq u lahayn in ay faragashato arrimaha gudaha ee dawlad dhexdeeda ka jirta isaga oo ula jeeda arrinta Ukraine iyo ruushka iyo arrinta Taiwan iyo shiinaha waxaas oo dhan waxa ay imaanayaan ayada oo warbaahinta caalamku ay si weyn u hadalhayaan in maraakiibta dagaalka ee shiinaha ay u dhaqaaqeen xeebaha Taiwan ayada oo sidoo kalena ay diyaaradaha dagaalku ay dul wareegayaan isla hawada Taiwan tani waxa lagu tilmaami karaa halis weyn oo ka soo ifbaxaysa ruushka iyo shiinaha oo dunidu ay wajahayso shiinuhu waxa uu leeyahay Taiwan ma ahan wadan ee waa gobol ka tirsan shiinaha warbaahinta shiinuhu waxa ay sheegaan in hadda ka hor uu dhacay dagaal sokeeye kaas oo keenay in dad badan ay ku barakacaan kooxo fallaaga ahna ka soo ifbaxaan taas ayaa keentay in kooxihii dagaalamayay midood ay ku dhawaaqdo dal madax bannaan laakiin dhulweynihii shiinaha waa isla sidiisii cid ka go'day oo la aqoonsan yahayna ma jirto dhacdooyinkaas waxay dhaceen 1949 haddii uusan dagaalkaasi ahliga ahi dhici lahayn ma jiri lahayn wax la yiraahdo dawladda Taiwan taas waa doodda shiinaha ee la soo marsiiyo warbaahinta shiinaha dagaalka ka hor Taiwan waxa ay ahayd jasiirad yar oo dawladda shiinaha ka tirsan markii Taiwan loo aqoonsaday dawlad madax bannaan shiinuhu waxa uu soo tuuray waraaqihiisii ugu horeeyay haddaba warqadiisa labaad ee dagaal shaacinta ah ma soo saari doonaa ayaa dunidu ay isweydiinaysaa haweeneyda afayeenku ah shiinaha oo mar kale ka hadashay arrinta Taiwan waxa ay tiri arinku marka uu quseeyo in la ixtiraamo madax bannaanida iyo qarannimada wadan iyo nabad ugu wada noolaanshaha gobol dawladda Mareykanka wax boos ah ugama bannaana in ay shiinaha u tilmaanto waxa ay tahay in uu shiinuhu sameeyo iyo waxa uusan sameeynin waxa ay tiri waqti hadda laga joogo 20 sano Mareykanku waxa uu weeraray diyaarad dul maraysay hawada Yugoslavia waxa uu ku dilay 2 qof oo Shiinees ah kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen marka yuu Mareykanku u sheegayaa in qarannimo iyo madax bannaani la ixtiraamo waxay kaloo sheegtay in dawladda shiinuhu ay xubin joogto ah ka tahay golaha ammaanka sidaas darteedna aysan weligeed cid ku xadgudbin markastana ay ilaaliso mabaadi'da caalamiga ah ee heshiiska lagu yahay shiinuhu waxa uu isku dayayaa in uu hadda ku dhaqaaqo dib u wareegidda Taiwan ayadoo uu fursad u arko in uu ka faa'iideysto xilligan oo dunidu ay la jahwareersan tahay sidii loo wajihi lahaa xaaladda Ukraine iyo Ruushka haddaba daawade adiga ahaan sidee ayuu kula tahay in uu xaalku noqon doono maalmaha soo aadan ma dhici kartaa in Mareykanku uu dagaal kala hortago labada dawladood ee quwadaha waaweyn Ruushka iyo Shiinaha midkood ama labadaba saameyn noocee ah ayay nagu yeelan kartaa ka Soomaali ahaan fadlan aragtidaada nagula wadaag qaybta commentiska intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan tan iyo warbixinta xigta waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah